haddaba maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah siraha lagu isticmaalo TikTok kaas oo ku saacidaya in aad iska bedeshid qaybta dambe ee loo yaqaano background adiga oo isticmaalaya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن السلام الأمان أصحابتك وحران كان لك عبد السمد ستيفلر ميلكستوت كجوكتان دافع جليدة مقال كان مانتا وحان كهد لدونا سيدي آيات وصمي كرتها مقالة آذك وقرطة بضان لغو صوبان ديغو تيك توك مقالadaas oo ka saacidaya in ay muqaalada fiidiyoda aad soo gelinaysid ay noqdaan kuwa aad u qurux badan yeelanaya boqosho aad u fara badan. Haddaba muqaalka maanta waxaan isku eegi doonaa siraha kamid ah kuwa lagu bedelo kalarka backgroundka dambe adiga oo isticmaalaya kalar kamid ah kalaraha jira sida casaan, blue, cagaar. hal kalar oo isku mid ah ayaa loo baahan yahay in uu ka dambeeyo backgroundkaaga marka aad bedelisid kalarka. Haddaba waxaan isla eegi doonaa muqaalkaas ayaan maanta isla eegi doonaa. isku soo laabasho wanaagsan saaxiibayaal meel kasta ka joogtaan daafaha dunida. haddaba waxaan guda gali doonaa muqaalkeeni ka hor inta aan guda galin muqaalka. waa muqaalkii labaad ee aan ka sameynayo TikTok. muqaalkii koowaad aan ka sameynayo TikTok halka ayaad ku arkaysaa. sidoo kale waa muqaalkii labaad waxaan kaloo jeclahay in aan muqaalo kale ka soo sameeyo qaybtan aan ka hadlayo oo ah qurxinta muqaalada TikTok. haddaba si aad ula socodsid fadlan subscribe kanaalka. maanta waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaano backgroundka dambe. haddaba waxaan u baahanahay in aan faahfaahiyo habka aad u heli kartid background dambe oo aad u qurxoon. marka koowaad waxaad u baahan tahay in aad haysatid color in uu ka dambeeyo shay leh color kaliya sida cagaar, casaan, blue hadba sidii aad u fahmaysid ama kii aad helaysid kalaradaas in uu ka dambeeyo. taas ayaa ku sahlaysa in aad backgroundkaaga ka dhigi kartid dark ama midabka aad rabtid adigu aad jeceshahay. muhiimadu maaha kaliya in aad ka dhigtid dark. waxaan u baahanahay application-ka loo yaqaano Lightroom. Lightroom waa application lagu hagaajiyo muuqaalada. barnaamijka loo yaqaano Lightroom waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store-ka. sidoo kale waxaad ka heli kartaa linkiga hoose. marka koowaad soo furo application-ka loo yaqaanay Lightroom. marka aad application-ka soo furatid sidaas ayuu u yaalaa shaashadiisa hore. marka aad application-ka soo furatid dooro project ama halka ay ku qoran tahay pluska. halka ay ku qoran tahay pluska markaad dooratid ka bacdi waxaad dooranaysaa 16:9 oo ah cabirka loogu talagalay in aad u isticmaashid muuqaalada TikTok ama sidoo kale verticalka loo yaqaano. marka aad dooratid sidoo kale resolution-ka ka bacdi intaas ka bacdi waxaad dhahaysaa create. waxa keenaya shaashada hore soo gasho muuqaalada aad u baahan tahay ka bacdi tag video and photos. intaas ka bacdi soo gasho muuqaalada aad u baahan tahay. muuqaalkan ayaan ku tijaabin rabnaa. waxaad soo gashanaysaa muuqaalkii aad u baahnayd in aad soo gashatid. muuqaaladan ayaan ku tijaabinayaa muuqaal ka mid ah. muuqaalkan ayaan soo dooranayaa. sidoo kale muuqaalkan backgroundka waa inuu noqdaa hal kalar. muhiimadu waa intaas oo kaliya. ka bacdi cabirkaas ayaan saxanayaa ama crop ayaan soo dhahayaa si uu igu leekaado. ka bacdi waxaan tagayaa meesha ugu muhiimsan ee aan rabno inaan isticmaalo waa halka hoose ku qoran tahay effect. effectska marka aad tagtid ka bacdi waxaad soo gashanaysaa effect. intaas ka bacdi waxaad tagaysaa light, color and light. color and light marka aad tagtid hoos ayaad u tagaysaa. hoos marka aad tagtid waxaad dooranaysaa replace color oo ah in aad kalarka bedeshid. haddaba muhiimadu halkan ayay noqonaysaa waa kalarka aad bedelaysid iyo kalarka cusub aad soo gashanaysid ayaa isku hoos yaala. waa inaad fahantid kalarka uu yahay ayaa dooranaysaa marka koowaad adigoo taabanaya penka qalinka oo ah ii dooro. intaas ka bacdi waxaad ku bedelaysaa kalarka cusub ee aad rabtid in new kalarka ayaad halkan soo gelinaysaa. okay hadda waxaan rabnaa inaan madowgii si wacan ugu hagaajino kalarka cusub ee madowga. okay si wuxuu sameynayaa wuxuu ka dhigayaa mid fasiix ayuu ka dhigayaa ama aad u muuqanaya kaliya maaha in aan kalarka madowga isticmaali karno aan bedeli karno. kalar kasta oo qofka dabadiisa yaala ayaad bedeli kartaa. taas ayaa ah muhiimada aan muuqaalkan uga hadlayo. kaliya kama hadlayo in aad bedeli kartid kalarka madowga oo kaliya. waa inaad bedeshaa kalarka casaanka, cagaarka. sidoo kale waxaan ku tijaabinayaa qayb labaad oo ah in aad isticmaali kartid kalar kaliya. haddaba halkan waxaa yaala marada cas sidii ayaad ugu bedeli kartaa kalar nooc kala.
marka koowaad waxaad dooranaysaa kalarkii la bedelayay kabacdi qalin pinka ayaa daawanaysaa waa taabsiinaysaa kabacdi new kalarkii halkaas haddii aad aragtid hoos kalarka buluug ayuu ku bedelay waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee aad ku bedeli kartid kalarkaaga ama green screen haddii aad isticmaalaysid ama blue haddii aad isticmaalaysid wax kasta oo aad isticmaalaysid intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibayaal waxaan jeclahay inaad la fahanteen muuqaalka insha Allah aad ayaad u mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad halkan nala soo gaadhay fadlan muuqaalka like gare kanaalkana subscribe gare inta aan muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh